naagay Minnesota canka ka ah oo masiibaradeedii siilkeeda shuunkeeda meelaha la wareejinayo shashanta lagu gadanayo horta aniga ma ihi waa jihaad nafsiyan maxaa yeelay waa in la ceebeeyaa qofka kale waa la ceebeeyaa maxaa yeelay ayada ceebta ku shaqaysata ayada gabdhii Soomaaliyeed anaka nala dhashay ku walaalaheed iyo ku soo gelinaysa meelaha nacalada ku dhacday oo ursaaqad ka raadinaysa guri ka raadinaysa markaas oo maalo ina adeerkay barbaro ina adeerkaaba oo cadaabta gal oo musiibo kugu dhacday oo irsaaqad la ilaahay kugu rid oo ilaahay inta jeceshan ka qaad maxaa yeelay بسم الله الرحمن الرحيم كل طوعا ونكسن داود يالكو سو دباد halkaan ka daawanaysan waa socod media aad mar ka daawataan barnaamijyo kala duwan maanta barnaamijkeena aad ku daawan doontaan wuxuu noqon doonaa barnaamij gaar ah aan ku eegi doono majaajilistada ku nool dalka Mareykanka Nimco Joker iyo wariyaha weyn ee Maxamuud Maxamed Daahir iyo gabadha kale loo yaqaano Hani Sharaf dagaalkooda ka dhaxeeya muxuu ku dhashay maxaa ka jira muuqaalada laga faafiyay Nimco Joker marumba wareysi gaar ah aan la yeelanay Maxamuud Maxamed Daahir oo ku sugan dalka Bultunka caasimada Brussels ayaa inoogu warami doono intaan barnaamijkeena u gudubgalin fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe inoo saar muuqaalka like saar comment iyo hoos inoo soo qoro waad ku maasantiin daawashada aad daawanayso barnaamijyadeena aan ku bilaabno barnaamijkeena maanta wuxuu noqon doonaa dagaalka ka dhaxdhashay ee majalistada Nimco Joker iyo wariyaha weyn Maxamuud Maxamed Daahir oo loo yaqaano Maxamed Carab iyo dagaalka ay ku soo biirtay ee gabadha loo yaqaano Hani Sharaf aan ku hormarnay wariyaha weyn Maxamuud Maxamed Daahir dagaalkooda sidoo uu sheegay Maxamuud Maxamed Daahir wuxuu ku dhashay wuxuu yiri wariyaha Maxamuud Daahir waxa difaacayaa gabdhaha Soomaaliyeed fanaanada majalistada Nimco Joker waxay sameysay ayuu yiri wariyaha Maxamuud Maxamed Daahir waxyaabo ka baxsan dhanka diiniyan waxayna sameystay ayuu yiri website oo lagu faafiyo muuqaalada galmada ah sida uu sheegay Maxamuud Maxamed Daahir wuxuuna shaaciyay muuqaalo ah in Nimco Joker hore u sameysay muuqaalo galma ah sida uu noo sheegay wariyaha Maxamuud Maxamed Daahir Maxamuud Maxamed Daahir wuxuu yiri waxaan difaacayaa gabdhaha Soomaaliyeed si ay u marhabaabinin Nimco Joker fasahaada ee ku wado gabdhaha Soomaaliyeed dhanka kale Hani Sharaf iyo Nimco Joker dagaalkooda ayaa la sheegay inuu ku bilaawday Nimco Joker inay wacday Hani Sharaf ee ku tiray waxaan ku soo dirayaa fiisa ku galka dalka Mareykanka iyo laakiin waxyaabo aan hadda aan afkeena soo qaban karin ayay ku tiray Nimco Joker si ayuu dagaalkooda ku dhashay Hani Sharaf iyo Nimco Joker waxa barihii ugu dambeeyay social media dhex socday in Nimco Joker iska soo riday uurka ilmaha ay ku heysay qaar ayaa dhahayay islama joogtaan ninkaaga Faisal Xawaasi sidee ayuu urkaada ku dhashay ay dadka isku haysteen waxaana urkaasi ka hadashay maamulyoon oo kula talisay in iska soo rido ilmaha Nimco Joker laakiin waa arin ka baxsan dhanka diiniyan arintaasi waxaan wareysi gaar ah la yeelan oo arintan la xiriirta wariyaha weyn Maxamuud Maxamed Daahir ku soo dhawaaw Maxamuud Maxamed Daahir warbaahinta hor socod media aad iyo aad u mahadsantihiin meediyaha ورصعد ميديا أربعين ورصعد هذا أو ما سنتين وأنا إذا كم واحد إلنا وقت كان ما سنت هاي نمعه وحي كميت هاي قبلها أمريكا كل دقن رنتي قبلها سومالي دو قبلها شرف له إلا أبينا معها نين رجع دو قبر وحكي الشيء وحبي على دو رجع قار وقبلها إسكت دولميان لأن تصارين في عن معها laakiin Nimco ayada gabdhaha ay aad u dulmisaa oo website-yo Google-ka ku jira oo hadda dad ku qortid Google-ka XX Soomaali hadda ku qortid uu ku soo baxaya gabdhaha ayay gelisaa website-kaas qola cadaan ayay shir la gashay gabdho badan oo Soomaaliyeed ku jira wallahi oo billahi ayada ka dambaysa oo hooshaas ka shaqeysata sida la og yahay 2000 door sano ka hor waxay sameysay muuqaal galma ah muuqaalkaas waxa markay la xumaatay ay sheegtay in la kufsaday oo la furxumeeyay goolku ku jira hadda dad ku qortid waa arkaysaa iyadoo dhees waa la kufsaday video baa laga duubay saas baan sunu abay baan sameeyay waa waxay arin kadaaba oo been abuur ah ficilka ay ku dhaqaaqday
markay nimanka cadaanka ee la heshiisay oo website-kaas ay sheerka ay la naqatay ayadaa isku bilowday wixii la xumaaday markay la xumaadeen markay arrintaas ay la xumaatay oo ceeb ay la naqatay ayay hadda waxay bilaabday gabdhaha Soomaalida inay halkaas geliso wallahi billahi tallahi qof walbo fiirsada wuu naxayaa gabdhaha badan ee Soomaaliyeed halkaas ku jireen Nimca Joker ay gelisay gabdhaha Soomaaliyeed ee Nimca Joker ay ceebaysay website-kaas ay ku quftay waxa ayada nafsadeeda u diiday oo markay galmada ay duubtay la xumaaday maanta haddii ayadii ay faafinayso gabdho Soomaaliyeed oo video si qaldan laga duubay ama video si qaldan qof inay nin ay ugu duubeen ay u direen haddii ayada shilimaad ay ka raadinayso ilaahay irsaaqada uu ka galiyay oo ilaahay irsaaqadeeda meesha uu ku xiro wax nacalad ay ku dhacdo waxaas oo kale waa wax ilaahay uu nacaladeeyay oo qofka la socda ama taageera ama ku taageera munkarka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dhalika ad'afu min al-iman waxa nabi maxamed uu leeyahay hadda aragtid munkar gacanta ku suuli haddaad awoodin carabka hadal oo ku suuli oo dhan Nimca Joker nacalada ku dhacday iska dhaaf gabdhaha Soomaaliyeed ee aad gelinaysid war iska dhaaf isha galmada aajilaysid war waxaas wax fiican maaha hoog kugu dhac waxaas gabdhaha Soomaaliyeed ha ceebeenin haddii aad awoodin qalbiga ka nac waxa ugu yaro dalika ad'afu min al-iman in qalbiga laga naca in la sameeyo kuwa qabiilka ku taageerayo dhaay waxa islaanahay Maxamuud Suleymaano hebelo baa islaanahay intay ka dhacday waa wax nacalad ay ku dhacday qofka haddii xumaan uu sameeyo munkar uu ku guda jiro wax alla ka furasho maanta bal ka waran haddii midkeen uu sameesto website oo waxaas la gelinayo lacag malaayiin iyo qashid maxay taraysaa laakiin waa adduunyo waa wax yar waa waxaan nacalada laga qaado irsaaqad beela kugu dhacaysa awlaad la'aan baa kugu dhacaysa sida Nimca Joker oo kale waad baaba'aysaa war waxaas waxaan leeyahay ilaahay kaga toobakeen ilaahay kaga soo wax fiican ma aha ka saar gabdhaha Soomaaliyeed ee meelahaas aagilisay waana runtii waa wax ii sheeg aad u xun waxa intaas sii dheer hadda Minnesota waxay ka furatay ayadii gabar kale oo magaaladaas degan waxay furteen meel gabdhaha Soomaaliyeed baahida laga faa'iideysanayo nimanka taraaga wada loo geenayo arintaas waa arin ii sheeg runtii fadeexad oo ceeb ah oo alla ka furasho marka waxaan leeyahay Nimca Joker walaashay ilaahay ka baq haddii aad tahay qof ashahaata haddii qofku holaas galana hadda baab kala waayo waxa waaye xaaladiisa waa qatar kaasi wuxuu ahaa wariye Maxamuud Maxamed Daahir oo loo yaqaano Maxamuud Carab oo wareysi gaar ah naga siinayay arinta Nimca Joker aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay wareysi aan siisay intaasi ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena gaarka aan ku eegnay Nimca Joker iyo Maxamuud Maxamed Daahir yani sharaf intaasi ayaa ku soo gabagabeynaa fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar muuqaalkana like saar waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawanayso